sidani waa qalad fiidiyogan kan dhammaan fiidiyodan waa qalad i aamin hawshan maahan arrin shakhsiyadeed okay hoosoo baro ishqiyaasag because wiilka wax badan ayuu aaminsan wabarakatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin waxaan rajeynayaa dabcan inaad caafimaad qabtaan maalin qurux badan oo reyreyn badan iyo baashaalna aad ku jirtaan ishqiyaasag dabcan maanta waa maalin ka duwan maalmaha kale okay mimida ka hadlaya maanta fiidiyogan uu ka duwan yahay fiidiyooyadani vlogyada youtuberada Soomaalida dabcan sidani looma dul qaadan karo sidani waa qalad fiidiyogan kan dhammaan fiidiyodan waa qalad waxaan ka hadlayaa arrinta Samsam dabcan on ku soo koobayo daqiiqada kooban Samsam gabadha Malaysia ku nool ilaahay waxaan uga rajeynayaa cunuga yareen qan ee ka geeriyooday naxariista janno inuu ilaahay ka waraabiyo iyadana sabir iyo iibaan buuxo taamo uu ilaahay ka siiyo okay marka inta laga imaado i aamin believe waxaan ka hadlayay aamin wax xaqiiq oo jira youtuberada Soomaalida sidani waa qalad kan dhammaantiina waxa aad ka samayseen fiidiyodan waa qalad waliba kii ugu dambeysay qof Soomaaliya oo youtubera idinka oo shacabka Soomaaliyeed 90% halkaad maanta taagantihiin ay in soo gaarsiiyeen xaq inaguma laha dabcan in qof kalood is haysaan qof geeridiisa taalo aad u sii dhex martaan oo aad noqotaan hoggaanka ama xadhiga aad ugu tagi lahaydeen ishqiyaasa qof hadaad is haysaan sidiisa waad ugu baraari kartaa laakiin san waa qalad gabadhani xaq uma laha in ilmaheegii geeriyooday 2 months ka hor 2 bilood ka hor geeriyooday xaq uma lahan in fiidiyogiisa la soo qaato reaction laga bixiyo waa qalad cad sidoo kale qof caawin waayay inuu mar kale fiidiyoga xayeysiin u saarto uu lacag ka sameeyo waa qalad desna humanity inaad gabadh fiidiyoga lacag ka samayso humanity kuma jirto Soomaalinimada kuma jirto islaamnimada kuma jirto shakhsiyadahana kuma fiicno dhammaan fiidiyada samayseen iniga ma ahan kalgacal iyo wanaag aad u samayseen Soomaalinimo waxay tahay argos dad is haysaan inaad lacag ka samaysaan iyo waxa weeye wax idinka faa'iideynii ah ma jiro intiina mid kamida oo la xidhiidhay dabcan koolgareeyay oo ku dhahay dabcan ha walaalo in samiri imaamad ilaahay kaaga rajeynaya ma jiro nasin xitaa haddii aad fiidiyada dad ku ataagaysaan maxaad laba fiidiyo ugu kala saaran weydeen dabcan iyadoo xaq uma laha inaad sawirkayga soo qaataan iyo cunugeera geeriyooday inaad idinku lacag dib uga sii samaysaan shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada aan hadli karin ee mediumka ku jirini uma dul qaadan karaan taas wada xaqiiqda jirta uma dul qaadan karaan i aamin okay i aamin because marka aad maalin kasta muran dul keentaan ummadda Soomaaliyeed meesha kaliya maanta isha ku hayso waa social mediumka okay dadka soo wala niga warqaba youtuberada 90% inaad tihiin dadka ugu islaynta badan ishaysiga badan ugu maranka badan this personality wax idinkeena ugu xidhiidha laakiin fiidiyogan wuxuu ka turjumayaa inaanu qofna xaq inagu lahayn 90% dadkiinaasi inaad lacag ka samaysaan gabadhaas Malaysia joogta ee miskiinta ee wax weeye geeridu ku taalo ee gogasho u taalo idinkoo ataagaya dad ay wax soo dhex mareen idinkoo ataagaya dad aad isku haysaan arrimo shakhsiyadeed hawshan maahan i aamin hawshan maahan arrin shakhsiyadeed okay yeah of course maaha arrin shakhsiyadeed ee waa arrin guud general dabcan haddii aad waaninaysa xitaa youtuberada Malaysia dabcan way qaldan yihiin 90% I don't know ma garanayo familkan kan dhamaantooda way qaldan yihiin inkastoo qaar kamid ah qaladkooda qirteen laakiin qofka dadka aad u qiranaysaan maaha bulshada Soomaaliyeed ee gabadhii aad qalad ka gasheen ee klibida in la sameynaysay ee shaqo wadaag ahaydeen ba xaq inagu la inaad ka raali gelisaan ee anaga maahan okay waxaan arkayay family-gan I don't know family-kan si fiican bay soo hadleen family saxaaf si fiican bay soo hadleen it mean masha Allah waa wax lagu farxo inuu qof sas raali gelin uu soo bixiyo laakiin dadka inaga baahan anaga maahan ee waxa idinka baahan gabadhii aad qaladka ka gasheen okay team washamsi برافو عليك تيم وشمسي برافو عليك طبعا waxaa sameyseen shaqo hankarnimo leh طبعا qabiil iskuma keenin magaalada ka soo wada jeedaan waxa isu keentay in aad damiir aad leedihiin
hadda laga bilaabo waxaan doonayaa youtuber kasta oo Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed qalad ka gala in saasoo kale waa shamsi loogu qaado oo damirkiinu nidido mid kasta oo wax xun in hor keena inuu damirkiinu diido oo shamsi u qataan because idinka wax ka dhigay because inay halkan soo gaarsiinay xaq inooguma lahan dabcan dadkii wax ka dhigay ee waliba kharash gareynay fangareynay kalimadooda daawanayay so advantage-ka ama faa'iidada ay ka sameynayeen inay dib ugu soo laabtaan oo bulshadii dhexdeedii mar kale muranka abuuran xaq dhamaantooda inooguma laha hoosow baro wiilkan hoosow baro ishqiyaasag because wiilkan wax badan ayuu aaminsan yahay oo fikir ahaan aanu ka simanahay aan rajaynayna boqolaal iyo kumanaan Soomaaliyeed ka simeeyeen postigiisa wuxuu soo posti gareeyay 22 saacadood ka hor xilligan postigiisa arkayay wuxuu soo posti gareeyay qoraalkan wuxuu dhahay youtuberada Soomaalida sidani wax wanaagsan maahan haddii ifan xitaa inaga fursan weydo inaad lacag samaysaan xaysiis ka samaysaan laba video kala saarta ee gabadha dhibtaas ku haysaan wax qalad ah hada la micno eeg ama u dhig buu soo sameeyay qoraalkiisa halkan ma soo saari doonaa hadda ka horna video waxa jirtay wiilkaasi uu lahaa youtuberada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed iyaga iska qaban kara wixii qalad ay ku sameeyaan hadda kadib wixii inta ka dambaysa qof kasta oo Soomaaliya oo youtuber Soomaaliya subscribe siiyay ama videos la watch gareeya oo daawada waxa uu xaq u leeyahay waan diiday wuxuu dhaho inuu diido okay wa shamsi maaha imiga laga bilaabo xitaa wa shamsi maaha up to 1 million up to 0 hala keeno 500 up to 0 hala keeno okay waa midkii qalad ka gala ummadda Soomaaliyeed inta wixii ka badan waa qalad sabab aan u aamusnaano ma jirto that's wrong sabab inta ka badan oo loo aamusnaado ma jirto okay arrimaha bulshada dabcan inaynu ka hadalno xaq baynu u leenahay dhamaanteena of course xaq baynu u leenahay adiga daawada xaq baad u leenahay tiraado wixii xun no this wrong George brother okay taas kaaga ma qalano because association-ka macnaha society-ga maanta ku dhex jirto ayaa halkan ku keentay it mean xaq uma lihid inaad mar kale iyaga dib ugu soo laabato oo dhexdooda qaladaad fara badan ka dhex samayso okay wanu ka warqabnay sahisankiina inaad lacag u kala tartamaysaan oo humanity aanu tartamaynin even aanu muslimiin jirin xitaa dadka 90% lacagaha aad samaysaan waxa inagu shaqaystaan xaq u leedihiin dabcan waqti geliseen cid inagu haysan kartaa ma jirto inaad qof kale ku caawisaan laakiin xumaanta bulshada ku haysaan inaad ka daysaan waa waxa ugu muhiimsan ee qof kaste xaq inagu leeyahay okay yeah of course okay dabcan waxaan rajaynayaa asxaabta intaan video lamida ku kulmi doono khayr badan baan idin rajaynayaa soo kale waxaan iga codsanayaa kanalka inaad subscribe saartaan si aynu u gaadhno maalmaha soo socda tiro fiican iyo cadad fiican update ma ahayn laakiin hadda kadib update baan soo noqon doonaa even waxa weeye halkan YouTube-ka waxa weeye active ka noqon doonaa sababtii aan u maqnaana waan sheegi doonaa inta faraha badan iyo mashquulkii faraha badan ee jiray dhamaantiin waxaan idin rajaynayaa inaad faraxsantihiin dhoola cadaynaysaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa wadan caafimaad iyo nabad intaba uu Ilaahay siiyo cudurradana ka badbaada nabad fiican Ilaahay siiyo iyo amni waara yani rajaynayaa meel kasta qof kasta Soomaaliya joogo inta video lamida ku kulmi doona